wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdi Nuur Cabdi oo jir jalaa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ku baaqay gurmad iyo biyo dhaamin in la gaarsiiyo Gedo. Waxa uu sheegay wasiirku in hay'adda ay u direen qayladhaan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. maanta waxaan isugu nimid inaan warbixin kooban ka bixino xaaladda biyo yari ee wadanka soo food saartay taasoo ku timid sababo la xiriira roobabkii dayrta sartii tagay oo aad u yaraa yaa waxay sababtay in guud ahaan wadanka uu ka dhaco biyo yari iyo abaaro guud ahaan gobolada dalka badidooda oo ay ugu horeyso gobolada sida maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. guud ahaan waxaa lagu qiyaasay dadka biyo la'aanta ay hayso 1,100,000 oo qof waase kala daran yihiin. xaaladda emergency-ga ee hadda taagan waxay ka taagan tahay qaar ka mid ah guud ahaan gobolka Gedo magaalooyinkiisa dhan iyo qaar ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool. annagu waxaan abiil u dirnay warbixin iyo qayladaan u dirnay hay'adaha ka shaqeyn jiray ama naga caawin jiray ka wasaarad ahaan biyaha oo ay ugu horeyso UNICEF iyo UNDP. ilaa hadda waxaana soo gaaray oo kasoo jawaabay kaliya hay'adda UNICEF oo kasoo jawaabtay inay biyo siinayso 4 magaalo oo gobolka Gedo ah 5,000 oo qoys oo u dhiganta 30,000 oo qof. waxayna biyo dhaamin ka bilowday magaalooyinka Baardheere, Luuq, Buurdhuubo iyo Doolow. guud ahaan magaalooyinka hadda emergency-ga u baahan ee sidii degdeg in wax looga qabto ay tahay waxa ay kala yihiin Beled Xaawo, Luuq, Doolow, Ceelwaaq, Garbaharey, Buurdhuubo iyo Baardheere oo gobolka Gedo ah, Yeed oo gobolka Bakool, Buurhakaba, Bardaale iyo Qasxa Dheere oo gobolka Bay ah, Beledweyne oo gobolka Hiiraan ah. saa la socotaan biyo la'aanta iyo qayladhaanta beriyahan dhan way socotay. shalay annagu waxaan isugu nimid annagoo dhowr wasaaradood ay khuseysay arrimaha biyo la'aanta iyo abaaraha ay ugu horeyso wasaaradda biyaha, wasaaradda gargaarka, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda warfaafinta. waxaan shir isugu nimid sidii looga jawaabi lahaa falanqeyn iyo dood dheer kadib waxaa noo soo baxday inaan hay'adaha la hadalno baaqna u dirno. shir kale ayaa maanta ka jeedinay golaha wasiirada oo shir degdeg lahaa qayb bay ka ahayd arrimaha looga hadlayay abaarahan iyo emergency-gan. waxaana lagu soo gabagabeeyey laisku soo afgartay in qayladhaan loo diro beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ee wax ka geysan kara guud ahaan arrimahaas iyo biyo la'aanta si ay u caawiyaan dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda. intaa kadib hadduu ilaahay caawana shir kale aan isugu imaan doonaa wasaaradihii shalay shiray annagoo ah oo aan rabno inaan isu ururino wixii ka soo baxay shirarkeennii tanii shalay kii maanta ee golaha wasiirada. warbixintan aan idin siinay ee dadka nambarka biyo la'aanta ama qoysaska biyaha u baahan waa warbixin ay soo ururiyeen wasaaradda ay soo ururisay wasaaradda biyaha, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha heer federaal, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha heer maamul. waa Mulkheer Axmed soo